السلام عليكم وأنا محمد موسى maanta waxaan rabaa inaan i tuso Dolly2 maanta markaan ka hadalno waxaa ku jiray waitlist-ga ku jiray bishii April aan galay marka shalay toole hal maalin kor waxay soo direen invite so waxaa kamid ah dadka ugu horeeya oo isticmaali karaan Dolly2 hadda aqaanin Dolly2 waxa waaye AI oo waxa gelinay text qoraal la qoray kadibna waxa ku siinay sawir noocan oo kale ku siinay marka qoraalka si kasta oo bedeli kartaa marka mar walba ku siinay sawir aan la arkin oo aan internetka ku jirno adiga ku qaasay mar walba waxyaalo badan siima diyaarinin dhowr xabaa diyaariyay waxaana leedahay meeshaan waxaan la dhaho in paint marka sawir adiga qaatay inaad soo qaadid adiga aad tirtire waxa dhahay meeshaan waxa gelisaa sawir sidaas marka aad qorisid marka hada meeshaan kale waxa lagu qoray flamingo baashana la hadda waxaan tusaale leh waa meesha ku jiraan hada taabunay hada ma wax oo haddadan aan qoray ma oo wax dadka hor u sii qoreen oo la sii diyaariyay moogtaa website-kooda waa marka website-kan adigoo kala daga duwan gashaneen aanad ku jirin waitlist-ga website-kan bisa helay iyo video-yaal ku jira internet-ka kala bis la ogaa kartaa laakiin marka maanta waxa rabaa inaan tuso website-kooda rabaa inaan tuso u shaqeynayo saan wiiga website-ka meeshaan kor waxa ku qoran magaciiga meeshaan kor waxa ku qoranaysa 112 credit laakiin marka ugu horeysa waxay ku siinayaan konton bil kastana waxay ku siinayaan 15 xabo oo free ah yani 15 xabo sawir raasi kartaa marka ani kontonkayga iska wada isticmaalay marka hadda u baahantay inaad badsatid yani hadday ka dhamaadaan kontonkaas xabo waa gada kartaa lacagta 150 ay ka bilaabanayaan waxay gadayaan so waxaan ugu yar $15 $15 lacag badan waay dad badan hadda maadaama ku jirto bayta ma taqaana dad badan ka qiilnaa dhaayeen lacagtu ay badan tahay ma awoodno waxa soo kale laakiin bayta waay so wili ma soo wada bixin banaanka si fiican ma wada yaalo bahalkan qof kastoo rabo inuu galo miska isticmaali karo website-kan marka lacagta wili go'aan lagama gaarin marka soo 15 ay ku bilaabeen waxa laga yaabaa inay bilaabaan inay soo geeyaan xaysiis website-kan ama si kale ku sameeyaan lacag ma fahantay marka daa ku bilaabno qoraalkiina ugu horeeyo waa kan qoraalka laakiin hal waxaan sheego qoraalyaashan wuxuu ku shaqeynaa oo kaliya af Ingiriisi waay soo mooyinuu luqad kale ku shaqeynayo laakiin in af Ingiriisi ku qortido waay haddana meesha waxaan ku qoray a Somali flag on top of building lens flare waa arkanas wax lagu wada marka aan raadino hadda wuxuu noo soo saaray sawiraanta noo soo saaray ugu Dolly2 maaha iyaga ugu maxalli jiray ugu quwada badan eeyaashan oo banaanka yani oo la isticmaalo laakiin waxa way tan oo ugu fiican way hadda shirkadooyin kala jiraan soo saarooyin eeyaal kale oo la dhaho Midjourney Google ka mid soo wada laakiin hadda kan banaanka taalo tan yani diyaaran ka wada yani Soomaalida ku qortid waa laga yaabaa inay fahanto waxa ka wadid laakiin sawirka ma aha perfect lens flare waxa ka wada waxyaalahan oo markay qoraxda yani ku dhacdo kaamiradana waxyaalahan oo iftiinkan sawirkan oo xalan Soomaaliya oo kale so on top of building hadaya ay to haribno kor saarnaado dabaq laakiin dabaq la arkay inuu gadaal dabaq ka yaalo kan xataa san waa ana hadda meeshan fiirisin waxa loo badan soo isticmaalay kontonkayga xabaan isticmaalay intii ku jiraan so marka hadda hoos aad hal mar aan tuso ku ugu horeeyaan helay kuwan ahayn ku ugu horeeyay helay inkastana sida hadda kuwan aanan ahayn mid fiican ka waay laakiin so markasta laakiin dhahdid search ma taqaana waxa ka qasaarayso credit-ka ay haysid kontonka xabo ama 100ka inta haysid hoos u dhacay laakiin markasta dhahdid generate wuxuu ku siinaa sawir aanan wili arkin oo kale yani adiga bis ku qaasay sababtoo ah Dolly waxa lagu tababaray sawiraan badan 3 bilyan oo sawir amaleena oo sawiraan in lagu tababaray marka way fahmi marka waxa ka wadid hadda dhahdid lens flare hadda dhahdid building hadda dhahdid flag hadda Somali flag marka hadda Somali bis ku qor laha wax kan laga yaabaa inay soo saaraan suuqa dijaabino maaragta hadda Somali marka maadaama aan calna dhihin wax si kale u fahmay hadda korka fiirsa sawiraan caadi oo hadda kale ninka hadda ma fahmin inuu yahay nin jeebad gacanta kula jiro oo dabaqyaal ka dambeeyaan يعني دبي أما سعودي مش جوج ورك ما يعني ساسا لوم ملا لك دا تابتيد هذه زوم إن وحنقف ما أوكي wax sawiraan oo internetka ku jira dhan badan lagu programiyay marka sawiraan isku keenay ma fahantay marka waxa loo kala ku fiican tahay jiraan waxa looyinka hadoo kale
3D render oo kale hadda aniga journalkii waxaan ku sameeyaa 3D model aan sameeyo marka haddii wax kale ku fiirsi 3D camal ama sculpture wax kasta ku fikir karta adiga aanan realistic ahayn yani rumaatay weji qof aanan ku jirin sawiraan fiican ku siinaya haddaan ku brobeena kan labaad waxaan ku brobeynaa kan labaad waxa waaye waa sidii kii hore oo kale waxa waaye Somali flag on top of mountain focus aan hadda ku daray yani lens flare bahaladana ay moogtahay lens flare qoraxda iftiinka soo baxayaan laakiin focus aan ku qoray aan fiirinay inaan sii karto waa kuwana sawiraantii hadda noo soo saartay mountain adahay so waxa waaye buur waaye so buurna taa wala direema inuu meel weyn buura calankaas kor saaran yahay okay kana ugu fiicnaa laga yaabaa kana ma bahaba calan Soomaali kan saddexaad a painting of a person holding a Somali flag in a museum hadda meeshan dafiris waxaa ku qoray painting so all your paint waa dhigi kartaa waxa u baahanta hadda sawiraanta noo soo buuxin example kama taqaana tips oo kale waxaa isticmaali kartaa ku qoran digital art a figure waxa u baahan wax kasta yani maskaxda ku soo dhaco horuka ku soo saara marka dhahay a person holding a Somali flag Soomaaliya yani dad madow inuu yahay ogi way ogtay la tahay soo sawir kasta ay soo saarto qof madow ku jiro qof haddaan kuma qaldiso laakiin kulligood calan Soomaali kulligood uma wada laakiin sawir oo museum yaalo horta u egyahay oo bari hore la sawiray oo museum meel iska yaalo laakiin Soomaali may hadda kan afraad oo kale waa waxaalooyinka oo lagu tababaray mataqaana dooli si fiican loogu tababaro waxaan kale ku fiican tahay a realistic 3D model of a person holding a Somali flag so marka waxaalooyinka ku fiican tahay waxa waaye 3D model ka dhahan oo kale iyo wax kasta oo painting horta la xiriiro haddii saan ku sheegay haddii aanan ahayn wax oonan qof bil aadan wejigiisa arkaynin hadda sawirkan oo kale 3D render waxa loo malaa in lagu sameeyay software yani oo Maya ama Blender software noocaas oo kale okay hadda calamo Soomaali kan Argentina weegi ama Soomaali ama laakiin kan perfect waay ma oga wax ka qaldan laakiin wallahi si fiican u keenay calanka iyo colorka iyo wax kasto saa ku sheegay xasameeyay zoom in so had 3 bilyan lagu tababaro ka warna hadii lagu tababaro 10 bilyan ama 20 bilyan sida Google ka sameeyay Google oo kale kan Google waxa lagu tababaray 20 bilyan miya ama 30 bilyan lagu tababaray 10 mar ay ka weyn tahay dolly ama 10 mar ku dhawaad ay ka weyn tahay soo markaas saaid ugu fiican tahay sawir kale jiro islaaniga isticmaalayo a realistic 3D model of a person holding Somali flag digital art 3D focus ku qoran tahay class jiray kan waa ka hadin sheegay sawiraantana helay marka kan ugu dambeeya saaid uga helay sawirkan oo kale kana saaid uga helay moogta hadii yani lacala oo kale ay sawiraas dhahdid oo kan wala sawirka maxmo kale waa soo download gareysan kartaa meeshan download leeyahay save hada save dhahdid mic wuxuu kugu save gareynaa dhinacan oo la dhaho mic collection marka sawirkan soo download gareeyay waxaan la aaday Creator software-kan waa sida Photoshop oo kale sawiranta $100 inaan ku tijaabiyo sawirkan waxa marka intaan ka jaray halaas intaas aan ka jaray yani waa kistarade waa kan markaan ka jaray Photoshop-ka aan Creator aan Creator aan intaas kaga jaray aan color-kana aan isticmaalay clone brush-ka sawir caadi wax loo maleeyo oo qof ku sameeyay yani 3D software so hada waxyaalooyin kale oo la yaab kale waxay tahay wuxuu fahmaa color-ka iyo nalka dhin jihadu ka imaanay iyo wax walba hada nalka hada fiirsi wajigeeda nalka wuxuu ka imaanaa dhinacan kale ka imaanaya dhinacan oo bidix uu ka imaanaya marka calanka maadaama inta afkeeda ka hayo nalka kor meeshan wuxuu ogtahay nalka inuu meel kor saaran yahay calanka intaas wuxuu qarinaa wajigeeda moogtahay nalka af wajigeeda hoose soo ma gaara maadaama calanka ka qarin wayo marka halahan sankeedu way madowdahay halkan hoose madowdahay laakiin afka hore waa buluug maadaama haday sidii yani wax waraaqad ama maro oo sheegay oo buluug ama color kale color koraba ahaado iftiinka ku soo baxayo oo u eg maradaas haysid hada maradan oo kale waa buluug kale soo lahaan oo kale afkiisa waxa ku dhacay color oo yar buluug yani detail-yaasha noocaas oo kale ma laazim aanu noqdo calan Soomaali yani hada waxa rabaa in tusakan ugu dambeeyo in painting marka daysid sawir lacala oo meesha Photoshop ka gelid hada sawirkan oo kale waxa imaaday Creator imaaday
sawirkan kale krita imaada kritaan ku bedela moogtahay haddaa rabtid dooli inaa u isticmaashid sida photoshop oo kale u isticmaali kartaa hadda sawirkan waxaa kasoo qaaday saaxiibkeyga lo naasir waa kana instagramkiisa waa wiil farshaxan oo maxaa lihi jiray wallaahi oo sawirka saaid ugu fiican hadda sawirana kasoo qaaday maadaama ani sawirka kuma fiicni saaid ugu xumahay marka instagramkiisa waa kuwana sawiraan waxaa ku jiraan saaid qurux badan sawirkan oo kale aan ka helay geesahan kale geesahan baneeyey meesha waxaa aaday kritaan imaaday sawirkan geliyey sawirka markaan geliyey sawirka lan yareeyey sawirka waa kana sawirkan yareeyey geesaha dhan waxaan ka dhigay yani kala la-aan png geesaha dhan waan ka tirtiray marka waxaa rabaa inay dooliya buuxisaan rabaa inta yani sawirkiisa asiga dhinacaas kore kuma dari moogtahay marka waxaa rabaa inaa noo isticmaalaya dooli inaa geesaha dhan buuxiyo markaan fiirinaha mar dooli wax samayn karto waxaan ku qoray beautiful background forest yani background qurux badan oo forestna yani meel weyn oo sida jiqo oo kale markaan fiirina waxay soo saarto waa kanaad sawirka helnay sawirkii originaalka waa kan koraa ka maqan geesaan oo kale wax yaala male soo hadda kan geeduu kusoo daray kana saan oo ka dhigay kan saddexna saan ka dhigay waxa mataqaanaa oo cajaa'ibka waxay tahay sawirka waa masawirtid adiga ama qof kale uu masawiro sawirka uu ku buuxinayo art styleka uu yani kalarka iyo wax kasto waxaa umalaysaa inuu hal qof wada masawiray ama in hamar iyaaga wada samayso kulli haddaa ku dhilayaad sawirkan oo kale dhinacan kor dhan waa samey hadduu ku dhilaad dogal naasir oo kale waa aamin lahaa sababto kalarka wax walba way isku wada egyihiin kalarka halkan iyo kalarka halkan wax kala duwan male يعني waxaa xoogaa mistake waxaa qaladaad waa laga helaa sida meeshaas yar oo kale laakiin inaa dhawlgareysatida aadi kartaa Krita ama Photoshop maadaama Krita ay tahay free Krita ka jeclaa Photoshop yani waa sida Photoshop kale wax kastana samaysaa soo inaa keensatid softwarekaas free oo kale hagaajin kartaa sawirkan haddaa geedkan ka hesho kale geedkan qaadi kartaa oo ku bedeli kartaa yani ka wada iyo sawir kale jiro sawirka ugu dambeeyo aan rabo inaan tuso waa sawir xasataa sameeyey naasir marnay tuso waa kan isla sidii kii hore oo kale sawirkan soo geliyey kadibna waan yareeyey soo waxaan ku qoray beautiful background trees soo geedo sawirka geedo ma lahayn laakiin geedaan ku qoray waxaan rabaa inaan arko hadduu naasir isticmaal lahaa oo kale geedo hadduu meesha kuma sawiri lahaa arstalk sidee noqon lahayd laakiin uma ega inuu meesha inay geedo ku dartay soo first of all sawirkii hore waa kan just wallahi si fiican u keentay si fiican u keentay dolly haddii aan side san haddaa saan dhow waa la dareemaa meelahe meesha yani ee ku ekeed laakiin haddaa sawirkan caadi saan kugu dhiibo hadda sawirkan caadi ahaan meel lagu saaro ma sheegi karti meesha uu ka bilaabanayo kan saxda uu ku dhammaanayo kuma sawir naasir hadda kale meeshan oo kale lama dareemayo meeshay tahay laakiin haddaan ka budbuudo waa la dareemaa halkaas waa laakiin caadi ahaan ma taabi kartid haddii aanad ku jirin wait listiga waxaa aadi kartaa openai.com/dolly2 waxaan dhigi doonaa videoga hoostiisa soo inaa hoos aadin inaad taaban kartiin waitlist halkan ay ku qoran tahay waitlist soo haddaa waitlistiga taabatid email ay u baahan doonaan emailka yani meel lagala soo xiriir lacala kadibna waxay ku dhigi doonaan oo waa heshay waxaa ka mid tahay dadka ugu horeeyo intaas arrinanayso maanta waxalooyin badan siima diyaarin saan sheegay marka haddaaysiin haddaa fikirdoynaysid waxalooyin aad dolly aan geli karno commentigaas ku soo qoran insha Allah videoga soo socdaan isku day doonaa inaan hal mar commentayaashiin aan qaado hal mar xabad u geliyo sababtoo waxaa haysta 105 xabaan haysta wax badan haysta soo intaas maanta iga ahayd waa mahadsantihiin maca salaama